muwaadinkan oo lagu magacaabo Cabdullaahi Cali Faarax Cunaye ayaa waxa uu cabasho ka yahay shirkad ajnabi ah oo ka howlgasho gudaha Soomaaliya isla markaana lagu magacaabo SKA. Muwaadinkan ayaa waxa uu sheegay in wiil uu dhalay uu u shaqaynayay shirkaddan iminkana uu u dhaxeeyo nolol iyo geeri kadib markii gaari ay leeyihiin uu darawal ka ahaa qarax u qabsaday. waxa aan u imid saaka weyn kugu imid waa cabasho weeye cabashadaas oo mid guud iyo mid khaas intaba ah ayaan rabaa inaan dhowr kelmadood ka xuso. ugu horeyn kambaniga la yiraaho SKA Soma SKA kambaniga la yiraaho awalu ayaan ka cabanayaa. waxay tahay cabashada aan kaga cabanayaa wiil aan aabihiis ahay ayaa u shaqayn jiray oo gaari u waday markaas qarax baa qabsaday wiilkii qarax baa ku qabsaday waa naafoobay ximin lafiisa ka mid oo dhaawacmani ma jirto lafuhu ka jajabay ximinta taranka ayuu ku waayay xaqiisiina waa yidii sharci muqaddasa marka dowladda federaalka waxa ku ah wixii shacabka loo geysto oo ay u geystaan dadka ajnabiga oo jooga waa inay kala xisaabtamaan sharci muqaddasa dowladday ku tahay. hase ahaatee inkastoon ogahay maantay hadalka aan ku hadlayaa mid aabbihi dhintay inuu yahay oo aan looga baran dowladda federaalka inay wax ka qabato cabashada dadweynaha jamac ha noqoto khaasa ha noqotee ee dadka shisheeyaha oo jooga weji kasta ha ku joogeen hadday ciidamo yihiin hadday diblomaasiyiin ay tahay safaarado ay yihiin haddii ay kambaniyaal yihiin intaba waxa dhibaataa oo ay u geystaan shacabka inkastoon dowladda federaalka looga baran inay wax ka qabato dhibaatada dadweynaha ay u geysanayaan. masna may tiri waa xujo rag baa layidhi in aan ka hadlo oo aan dowladda u gudbiyo oo ay wax iiga qabtaan ayaan codsanayaa. go-aan waxaan ku gaadhay inaan dowladda federaalka gaarsiiyo wiilkayga magtiisii baan rabaa mana dhiban mana noola caafimaad dabadda ayuu rabaa waa kama bixin karo xaquuqdii uu lahaa ayaan ka rabaa mag dhow baan ka rabaa. muwaadin Cabdullaahi Cali Faarax Cunaye oo sii hadlayay ayaa baaq cod dheer ah wuxuu dowladda federaalka Soomaaliya uga codsaday in shirkaddan ajnabiga ah xuquuqda wiilkiisa looga qaado. dowladda federaalka ayaa u ogolaanshaha ayaku ay leeyihiin ayay ku joogaan waddanka kuna yimaadeen mandate-ka ay ku joogaan dowladda federaalka ayaa siisay. waxaan ka codsanayaa magtii wiilkayga inaan iga siiyo ugu awalu waa dacwadeedu waxay ku saabsan tahay wiilka la yiraahdo Axmed Nuur Cabdullaahi Cali Faarax Cunaye oon aabihii ahay oo dhibaatadaasi ku gaartay kambaniga iyagoo u shaqaynaya asagoo u shaqaynaya Soomaali badan oo asaga kana horeysay kana dambeysay ay ku gaartay waxna u dhinteen waxna ku dhaawacmeen. waxaan ka codsanayaa wiilkayga magtiisii dowladda federaalka ayaan ka codsanayaa. nimankaasi awood anigu aan ugu tago malihi dhagax bay isku gudbeen ciidamada ka sokeeya waxa la xisaabtami karaa waa dowladda federaalka inay magtii wiilka iga siiyaan ayaan ka codsanayaa. waxaan mar labaad ku celinayaa oo aan madaxda dowladda ka codsanayaa wiilkayga magtiisii kambaniga la yiraahdo SKA ee aeroboortka ka shaqeysa oo transportka ee dhagaxda isku gudubtay iyo ciidanku ay ka sokeeyaan. waxaan codsanayaa dowladda federaalka magtii wiilkayga in layga siiyo halkaasay ku qoran yihiin. ninkaas baa manager u ah oo mataqaana ninkaasaa manager u ah. waxaan ka codsanayaa dowladda federaalka sida ugu dhaqsaha badan inay iga siiso magtiisii oo shacab fara badan oo wiilkaygu ka mid yahay qaba waxna u dhinteen waxna ay u naafoobeen. waxaan ka codsanayaa dowladda federaalka mar labaad iyo mar saddexaad in ay magtii wiilkayga siiyaan. shacabkana waxaan ogeysiinayaa meel kastoo ay joogaanba dhibaatada maanta taalla haddii ciidan ay tahay iyo hadday kambaniyaal tahay iyo hadday safaarada tahay shacabka Soomaaliya xadgudubka ay ku hayaan iyo sida dowladda Soomaaliya ay isaga dhaga tirtay oo shacabka aysan kaga xanuunsanayn oo dhibaatadii gaadhay aysan kaga dabaqanaynin ayaan idin ogeysiin mar labaad iyo mar saddexaadba
dowladda federaalka may tiri waa xujo rag baa layidhi waan aaminsanahay inaysan waxba ka qabanayn oo loogama baran oo intii dowladdaas maxamed cabdullaahi farmaajo ay jirtay cabashadaasi waa soo jirtay hase ahaatee waxba kama aysan qaban maantana inay ka qabanayaan kuma rajo weyne anigoo og hadal aabihii dhintay inaan ku hadlayo masna may tiri waa xujo rag baa layidhi waana iyadana ogeysiinaya waa xasuusinaya cabdiraxmaan kambaala som news muqdisho